maanta waxaynu ku bilaabaynaa dalka Ukraine ayaa waxa uu shaaciyay in Ruushku uu weeraro culus oo loo adeegsaday gantaalo iyo diyaaradaha droniska oo ku qaaday xarumaha tamarta laga dhaliyo oo ku yaala gobollo badan oo dalkaasi ku yaala. wasaaradda tamarta ee dalka Ukraine ayaa waxa ay sheegtay in koronto la'aan ay ka dhacday gobollo badan kadib weerarada Ruushka ee aroornimadii maanta oo ka dhacay dalkaas, iyadoo ciidamada cirka ee Ukraine ay sheegeen inay arkeen gulufo 10 drones ah oo weerar ah kuwaasi oo ay xigeen gantaalada xawaaraha sare leh ee loo yaqaano hypersonic missiles oo lagu beegsaday gobollo kale oo ay ku jiraan caasimadda Kiev, Zaporizhia iyo Lviv. Mas'uuliyiintu waxa ay sheegeen in 11 qof ay ku dhaawacmeen gobolka Zaporizhia kadib weerar drones ah oo Ruushka uu qaaday. dhanka kale wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa waxay sheegtay in difaacyada hawada sare ee dalkaasi ay burburiyeen 170 drones oo Ukraine ay leedahay kuwaasi oo lagu soo weeraray gobollo kala duwan habeennimadii xalay. difaacyada cirka waxa ay burburiyeen 48 drones ah gobolka Pryansk, 22 Voronezh ah, 16 Nizhny-Novgorod, 15 Kiloga, 14 oo Rostov ah iyo 10 kale oo lagu soo diray Kursk ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay wasaaradda Khamiista maanta. weeraradan ayaa waxa ay ku soo aadayaan iyadoo oo madaxweyne Putin uu xaqiijiyay in ciidamada Ukraine lagu hareereeyay magaalada Pokrovsk oo ah xarunta ugu weyn ee ciidamada Ukraine ee gobolka Donetsk iyo magaalada Kupiansk oo ah xarunta tareenada oo muhiim u ah oo ku taala gobolka Kharkiv ee waqooyi bari ee dalkaas. laakiin ciidamada Ukraine ayaa sheegay in ay war ku saabsan go'doominta Kupiansk uu yahay mid been abuur ah iyo mala awaal, halka afhayeenka ciidamada Ukraine ee bariga Hryhorij Shabol uu isna sheegay wakaalada wararka AP in xaaladda gobolka ee Pokrovsk ay tahay mid adag balse weli gacanta lagu hayo. haatan xiisadda Afghanistan iyo Pakistan haddii aynu eegno, ila xogogaal ah ayaa maanta sheegay in Afghanistan iyo Pakistan ay ku heshiiyeen in dib ay u bilaabaan wadahadallada nabadda ee magaalada Istanbul oo dhawaan dhacay maalmo kadib markii Islamabad ay ku dhawaaqday in wadahadalladii hore ay fashilmeen. mas'uul reer Pakistani ah ayaa sheegay in wadahadallada u dhaxeeya labada dal la filayo in dib loo bilaabo kadib markii ay istaageen Arbacadii. wareeg cusub oo wadahadallo ah ayaa suurtagal ah in la qabto Istanbul ayaa uu yiri mas'uulkan. wadahadalladan ayaa ujeedadu ay tahay in la helo heshiis nabadeed oo waara kadib dagaalo dhimasho badan sababay oo ka dhacay xadka labada dal kuwaasi oo ahaa kuwii ugu xumaa sanadihii ugu dambeeyay. labada dhinacba waxay horey ugu heshiiyeen xabajoojin magaalada Doha ee dalka Qatar 19 bishan October, balse kulamadii ugu dambeeyay ee Istanbul laguma gaarnin heshiis dhammaystiran. axadii ciidamada Pakistan waxa ay sheegeen in 5 askari oo Pakistani ah iyo 25 dagaalyahan oo ka tirsan Talibanka Pakistan lagu dilay dagaal ka dhacay xadka Afghanistan. hagaaga xagga Mareykanka haddii aynu qoraansano, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in wadankiisu uu si degdeg ah u bilaabi doono tijaabooyinka hubka nuclearka ah isagoo aanu bixin faahfaahin dheeraad ah. Tallaabadan ayaa timid saacado kadib markii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu sheegay in Moscow ay si guul leh ay u tijaabisay gantaalka badda quuse ee nuclearka xambaarsan, inkastoo Washington ay digniin ka bixisay arrintaasi. Trump ayaa baraha bulshada waxa uu ku yiri in wasaaradda dagaalka ay amartay in dib u bilowdo tijaabooyinka si Mareykanku ugu tartamo dalalka kale ee tijaabinaya hubka nuclearka. Putin ayaa waxa uu Arbacadii sheegay in Ruushku uu si guul leh u tijaabiyay hubka nuclearka ee loo yaqaano Poseidon oo awood u leh inuu sameeyo mawjado shucaac leh oo baabi'in kara magaalooyinka xeebaha ah. tijaabadii ugu dambeysay ee hubka nuclearka ah ee Mareykanka ayaa la sameeyay sanadii 1992 waxaana tijaabooyinkani muhiimka u yihiin hubinta awoodda hubka cusub iyo inkii hore